Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteena meel walba aad joogtaan. Halkani waa barta YouTube-kan ku leenahay Shey Media Production. Kusoo dhawaada warbixinta toddobaadkan. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar jaraskeer ee guduudan fur ama cas kolba sidaad u taqaano si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaalkani gaadho ee daawada. Fadlan muuqaalka haddaad ka heshay like saar. Sheekada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa qoraaga buugga I Forgot to Die. Khaliil Rafaati waxaa soo martay maalin nolosha ka jeclaa dhimashada. Xilligaasi waa darbajiif aad u caba daroogada noocyada ugu xunxun. Cabita daroogada waxa u dheeraa marar badan in xabsiga la dhigay, waxaana mar walba lagu soo eedeyn jiray dembiyada la xidhiidha maandooriyaha. Dhowr jeer ayuu xabsiga galay oo uu ka dhex noqday nin caan ah oo ka tilmaaman maxaabiista kale dhexdooda. Sawirada wejigiisa ayaa la dhigay meel walba oo ka mid ah xabsiyada ku yaala magaaladaasi. Nolosha silica adag ee uu xamili waayay darteed, marar badan ayuu go'aansaday inuu noloshiisa soo gabagabeeyo oo uu isdaldalo. Waxa uu sheegay in 9 jeer uu isku dayay inuu noloshiisa soo afjaro, balse ma aysan dhicin. Markii ugu dambeysay waxa uu qaatay go'aan adag, waxaana la gaadhay xilligan ka bixi lahaa noloshan qariban ee aan ku jiro. Waxaa la joogaa waqtigaan soo xiri lahaa albaabada nolosha qiyaaliga ee aan ku jiro. Waa inaan nolol cusub bilaabo. Haddii aan maandooriyaha ugu xun isticmaalo oo aan faqrina ahay, ma aha inaan meeshii ugu dambeysay nolosha aan ka taaganahay ee waxay ka dhigan tahay gabagabada noloshayda. Jawaabta uu markiiba siiyay ayaa ahayd xaqiiq maya. Khaliil Rafaati ayaa taasi beeniyay oo tusaale cad waxaa kugu filan. Khaliil Rafaati waxa uu si lama filaan ah kaga soo dhex baxay caalamkii maandooriyaha, wuxuuna ku soo biiray nolosha dhabta ah iyo caalamka cusub. Waxaana uu soo galay nolol ka duwan tii hore uu soo arkay. Isbitaalada la isaga daaweeyo ama la isaga saaro daroogada jirkiisa ku milantay ayuu tegay. Waxa kaloo uu tegay xarun dhaqan celin. Waxa uu ka soo baxay isagoo hami iyo nolol iyo qorshooyin sare wata. Rabitaanka weyn ee uu ku aadan maareynta nolosha ee guulka gaaristeeda ay ka muuqato. Saaxiibkiisii yaraantii ayaa garab ka qaatay kana saaciday inuu nolosha kala shaqeeyo meelo yar oo lagu iibiyo cabitaanada ama casiirka dabiiciga ah. Qorshaha aakhirkii waxa uu noqday mid noloshiisa cusub ku rida wadada guusha. Khaliil Rafaati wuxuu saaxiibkiis la shaqeynaya oo uu ka fakeray inuu furto ganacsi ka madax bannaan ka saaxiibkii. Sanadkii 2007 ayuu xarun yar oo lagu magacaabo Salef Organic ka furtay magaalada Malibu ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Guul weyn ayuu durbaba ka gaadhay iibka sharaabka ama casiirka. Sanadkii koowaad ayaa waxa uu soo xarootay adduun lacageed oo lagu qiyaasay $1 milyan oo dollarka Mareykanka. Cabitaanadu iibinaya oo ahaa kuwa tayo leh oo dabiici ah ayay jeclaysan dadku, sidaasna waxa uu ku kasbaday macaamiil badan, waxayna fursad u siisay inuu ballaariyo shaqadiisa baahida jirta awgeed. Wuxuuna muddo yar gudaheed ku biiray maalqabeennada ka dhex magacaaban bulshada iyo deegaanka uu ku nool yahay. Xilligan Khaliil waa mulkiilaha Salef Organic oo ah shirkadda cabitaanada ugu weyn gobolka California ee dalka Mareykanka. Dadka uu shaqaaleysiiyay ama uu shaqadu abuuray ee hadda u shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 200 oo qof, waxaana uu ku dhex leeyahay xarumo ama laamo magaalooyinka waaweyn oo ka mid ah dalka Mareykanka. Marka laga reebo iibinta cabitaanada oo bilow ah shaqadiisa iyo hamiga gudihiisa, hadda waxa uu soo saaraa cuntooyin kala duwan, waxyaabo kale oo ganacsigiisa la xidhiidha. Shirkaddu hadda waxay soo xareysaa adduun lacageed oo lagu qiyaasay $6 milyan oo dollar sanadkii. Waxa kale oo uu leeyahay diyaarad khaas u ah. Waxa uu qoray buug ugu magac daray I Forgot to Die. Safka hore waxa uu kaga jiraa dadka naadirka ee nolosha sida lama filaanka guulaha waaweyn uga gaadhay. Khaliil waxa uu tusaale u yahay qof kasta oo han sare leh, sidoo kalena waxa uu tusaale u yahay cid kasta oo nolosha ka dhacday inay soo ceshan karto. Waxa kaloo uu beeniyaa in faqrigu ka horkeeni karo inuu qofku han sare yeesho ama si aanu nolosha guul ka gaari karin. Qisada oo dhammaystiran waxaad ka akhrin kartaa buugga lagu magacaabo I Forgot to Die. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa warbixinta toddobaadkan. Intaan ku gumi doona warbixinta xigta waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.